dowladda federaalka ee Soomaaliya oo wado qorshe lagu baajinaya shirka beri uga furmaya beelaha Mundlood magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. ciidankii xalay qabsaday deegaanka Buur Eyle oo dib ugu soo laabtay magaalada Buur Hakabe ee gobolka Bay. maxay tahay sababta ay dib ugu soo laabteen? warbixinadaas ayaa idin faahfaahin doona daawadayaal. waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe noo saartaan channelada kala ah Mahiye Media Production iyo Southern Media Production. madaxweyne Farmaajo iyo xubno ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaare Khayre ayaa ku wargeliyay laamaha ammaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya in cadaadis la saaro ama la soo xiro qabanqaabiyaasha shirka lagu wado inuu beri ka furmo magaalada Muqdisho kaasoo looga tashanaya ayaha beesha Mundlood. shirkan oo maalmihii u dambeeyay la waday qabanqaabadiisa ayaa waxaa lagu martiqaaday madax hore, siyaasiyiin ay ka midka yihiin madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud, Ali Mahdi Maxamed iyo Shariif Sheekh Axmed, xildhibaano ka tirsan labada gole, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, isla mar ahaantaasina ka soo jeeda beelaha Mundlood. isku daygii koowaad ee la doonayay in shirka lagu baajiyo ayaa xalay dhicisoobay kadib markii siyaasiyiin ku xiran madaxtooyada ay isku dayeen in odayaasha dhaqanka ee hormuudka u ahaa kulankaasi ay ku qanciyaan in shirka dib loo dhigo. sidoo kale waxaa bilowday isku day labaad oo qorshe laamaha amniga dowladda ay ku doonayaan in shirka la baajiyo, sida wadooyinka oo la xiro iyo hoteelka lagu dhigayo shirka oo digniino loo diro. sida aanu xogta ka helayno waxaa bilowday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wado dowladda, taasoo ay dowladda ka go'an tahay in la baajiyo shirka wadatashiga beesha Mundlood, iyadoo dhanka kale beesha ay bilaabeen in aruursadaan ciidan haddii loo baahdo ka difaaca ciidanka dowladda goobta lagu qabanayo shirka. inkastoo aanay weli jirin war rasmi ah oo ka soo baxa dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan shirkaasi in la baajiyo, balse waxaa jira warar sheegaya in dowladdu awood u adeegsanayso baajinta shirkaasi oo laga cabsi qabo in isku dhac uu ka yimaado. dhanka kale, ciidamadii la wareegay deegaanka Buur Heybe ama Buur Eyle ayaa dib ugu soo laabtay maanta degmada Buur Hakabe ee gobolka Bay. wararka ayaa sheegaya in ciidamada halkaasi weeraray keliya uu watay sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana wararka qaar ay sheegayaan inuu jiro khilaaf u dhexeeya ciidanka dowladda ee ku sugan degmada Buur Hakabe ee gobolka Bay. khasaarihii guud ahaan ka dhashay dagaalkii saaka ka dhacay ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhinteen 2 askari oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla mar ahaantaasina ahaa gurmad ku wajahnaa deegaanka Buur Heybe ama Buur Eyle ee qiyaastii 40 kilomitir u jira degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay. ilaa iyo iminka lama oga khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray kooxda xarakada Al-Shabaab ee dagaalkaasi kadiska ahaa ama wadagalka ahaa ay ku qaaday ciidankii gurmadka ahaa ee ku wajahnaa deegaanka Buur Heybe ee gobolka Bay. ciidamada ka soo laabtay deegaanka Buur Heybe ayaa la sheegay in ay isticmaaleen gaadiidka dadweynaha si ay u soo gaaraan degmada Buur Hakabe ee gobolka Bay, walow xilligii ay baxayeen aysan wadan gaadiid dagaal iyo gaadiidka kalaba. halkaad nagala socotaan waa Mahiye Media Production iyo Southern Media Production. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin asxaabtii subscribe-ka noo saaray channelada iyo kuwa kale oo aan sugayno in ay ayagana subscribe noo saaraan.